السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada Premiere Pro course beginner course-kan waxaan ku qaadan doonaa insha Allah video editing-ka iyo qaabka markaa loo sameeyo video editing-ka waxaan markaas qaadan doonaa software-ka loo yaqaano Premiere Pro qaybta waa qaybtii markaa beginner-ka ah oo aynu ku qaadanayno markaa asaasiyaadka video editing-ka gaar ahaan software-ka loo yaqaano Premiere Pro software-kaas oo ah software-ada ugu caansan iyo software-ada ugu awooda badan ee markaa loo isticmaalo video editing-ka software-ka wuxuu ka mid yahay software-ada dhowrka ah ay soo saartay shirkadda loo yaqaano Adobe shirkadaas oo ah oo loogu bartay inay markaas soo saarto multimedia softwares oo aad iyo aad u badan Premiere Pro markii aad baratid waxaa fiican in aad ku xejisid oo aad baratid After Effects iyadoo markaa After Effects aynu ka sameyn doono insha Allah course kale oo markaas course kale oo markaas soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo okay marka Premiere Pro aynu bilaabeynaa marka had deertaan waxaan sameysaan la soo dejiyo Premiere Pro-ga haddii markaas software-kaasi uu ku jiro laptop-kaada waa soo furanaysaa then markaa laptop-ka aad soo furidid anyways always markaa qaabkan uu kugu soo bixi doonaa markuu saan kugu soo baxo waxaad doonaysaa inaad furto project ama inaad project cusub aad samaysato labadaas mid ayaad samaysan karaysaa so marka koowaad waxaad samayn kartaa new project ayaad ku dhufan kartaa inaad project cusub aad soo furitid ama inaad open project aad ahayd project markaa hore aad u isticmaalaysay oo hore kuu jira hore markaasi laptopka kugu save garaysnaa inaad markaa soo furitid okay qaybta markaa hadda tusaale kale tan oo kale intuu yaalaa editing videos ay u qoran waa project mar walba video aad ku dhigsanayso so projectyadii ugu dambeeyna markaa qaybtan ayuu markaas ku aali doonaa inkastoo aadan marka badan inta badan aa u baahanaynin open project laakiin project haddii meel kugu soo afjaraysan yahay waxaa dhahaysaa open project so project aad meesha u yaala ayaa aadaysaa kadib aad soo furanaysaa wuxuu la mid yahay dhammaan softwarada kale ee Adobe Illustrator Adobe ay leedahay ayuu la mid yahay okay qaybta kale waxaa markaa new project aad furanaysaa mar walbo video la edit gareynayo project ayaa loo yaqaanaa in la furto video meesha loo edit gareynayo dabcan magac kale leedahay laakiin si guud markaa video inaad edit gareysid ama something aad rabtid inaad samaysid waxaa furanaysaa waxa loo yaqaano project waxaa leedahay markaa new project aad ku dhufanaysaa then markaa new project aad ku dhuftid so halkaa waxaad ku qoraysaa marka magaca project aad markaasi aad doonaysid inaad samaysid tusaale kale hadda waxaan rabnaa Premiere Pro beginner course aan sameynayna magacaas ku qoraynaa Premiere Pro beginner for beginner okay so marka magaca waxa aad sameynaysid ayaa markaa ku qoraysaa hadday shirkada u sameynayso sidoo kale something like that ayaad ku qoraysaa sidoo kale waxaa ugu muhiimsan qaybta markaa new ku dhuftid qaybtan ugu muhiimsan oo location ah location waxaa waaye meesha aad dhidi lahayd ayaad markaasi cayiminaysaa oo addaysa waxaad doonayaa inaad dhido halkaas iyo halkaas okay qaybtan location ay ku qoran tahay waaye then waxaad ku dhufanaysaa qaybtan ay browse ku qoran tahay then qaybta browse haddaad ku dhufatid already marka wuxuu kuu soo saarayaa file explorer-ka aynu markaa kusoo sharaxnay qaybtani window-ga so file explorer-ka marka waxaa aadaysaa qaybta markaa aad rabtid inaad ku save garaysid hadda aniga waxaa ii doora qaybta d-da haddaan rabo inaad qaybta desktop aad ku save garaysto desktopka ku dhufanaya kadib folderkaasaa dooranaya kadib waxaa leeyahay select folder kadib meeshaan waxaa ujeedaa locationka wuxuu isu bedelay userkeeda desktopka folder loo yaqaano Premiere okay so kadib browserkaas markaa sidaas aad u isticmaalaysaa oo ah meeshii aad dhidi lahayd markaa waxa loo yaqaano projectyaasi okay aad ku save garay lahayd kadib waxaa leenahay markaa okay markaa dhahid waxaa lagu sameyn doonaa projectyaas ayaa lagu sameyn doonaa waxaana si toos lagu gelin doonaa wajahada ugu horeyso ee markaa Premiere Pro gudaha ayaa lagu gelin doonaa marka ugu horeyso uu ku soo baxo Premiere Pro-ga waxaa jira markaa watch space kala duwan so wuxuu ku soo bixi doonaa watch space loo yaqaano editing ayuu ku soo bixi doonaa qaybtan ayuu ku soo baxayaa qaybtan ayuu ku dhuftay oo sare so qaybtan sare aad ku dhuftay waxaa ii doorneed qaybta learning-ka hadda waxaad ku dhuftay editing-ka inta badan markii oo bilow uu yahay software-kaada ama markaas kugu horeyso wuxuu kusoo saari doonaa qaybta editing-ka qaybaha kale qaabka loo isticmaalo iyo qaabka loo jeestana dabcan waa iska fududahay keliya inaad klik ku siisid ayaa kaa xigta okay so inta badan waxaan isticmaali doonaa qaybta learning-ka maadaama aynu wax baranayno laakiin qaybta editing-ka waa inaan sharxnaa oo aynu markaa asaasiyaadka marka aynu sharxino waxaynu ku sharxi doonaa qaybta editing-ka okay so qaybta editing-ka markii la joogo waxaa markaasi arkaysaa in qaybahan ama daaqadahan kala duwan uu leeyahay Premiere Pro so waxaa u baahan tahay inaad daaqadahan aad kala fahansan tahay haddii daaqadahan aadan kala fahansaneyn a lot of stuff oo badan ayaa marka kugu adkaanayso si aad markaasi aa u fahanto marka daaqadaha marka waxa loo yaqaana interface aa loo yaqaanaa interface marka waa inaad magacyadooda kala garanayso
sidoo kale waa inaad taqaanaa mid walba iyo waxa loo isticmaalo. Okay, waxa ugu horey hadda aad taabanay oo agilityna waxay ahayd qeybahani sare oo aanu soo sheegnay in laga wado waxa loo yaqaano workspaces. So qeybahan kala duwan hadda laning, assembly, editing, color, effects, audio, crafts, captures and libraries waxa loo yaqaana marka modes aa loo yaqaana. Waa modes kala duwan ama qaababka kala duwan oo marka Premiere Pro daada uu yeelan karo ayaa marka waxa loo yaqaana qaybtaasi modes ayaa loo yaqaana. So qaybtan marka waxa loo yaqaana source monitor ayaa loo yaqaana. qaybtan waxa loo yaqaana yani source monitor ayaa loo yaqaana. So waxa kasoo bixi doona video intaadan la edit gareynin, video intaan la edit gareynin oo la geenin meeshii video lagu edit gareynaa lagu jarjarayay video kood hore waxa kasoo muuqan doona halkan waxaana loo yaqaana source monitor. Okay, qaybtan hoose ayaa jirta iyadana loo yaqaano project panel. qaybtan waxa loo yaqaana project panel. qaybtan waynu baranaynaa waxa loo yaqaana project panel. qaybtan ayaa jirta iyadana loo yaqaano tools ayaa loo yaqaana. qaybtan linekan oo dabcan linekan halkan yaalo ujeedaan oo hadda aan dhaqaajiyey waxa loo yaqaana iyadana marka editing ayaa loo yaqaana. Okay, so qaybtan marka editingka marka kasoo gudubna qayb kale waxaa jirta iyadana timeline loo yaqaano oo ah qaybtan waxaa loo yaqaana hadda aan calaameynayo haddii aan hal mar zoom out dhaho qaybta hadda aan calaameeyo waxaa loo yaqaana timeline ayaa loo yaqaana. qaybtan waxaa soo dhahnay source monitor waa shaashada waxa ay kasoo galayaan intaan la edit gareynin ka hor. qaybta waxaa loo yaqaana marka waa project panel. waa projectiyaada meesha wax aad kasoo gelinaysid laptopkaada waxa ku jiro aad kasoo gelin lahayd iyo wixii lamid ah. So qaybtan waxaa dhahna waa timeline. qaybtan kale hadda aad dooranayaan waxaa loo yaqaana tools. qaybtan waa qaybta marka wax la edit gareynaya ay kasoo muuqanayaan waa program monitor. Okay, qaybtan waxaa loo yaqaana audio mixer. audio mixerkana waxaa kasoo muuqan doona codka iyo xawaarihiisa intuu ku socdo codka ayaa ka arki doontaa. hadda aslonkaas cod uu socdo halkan ayaa marka laga arki doonaa oo markaa kasoo muuqan doonaa. So qaybaha kala duwan ayuu markaa leeyahay Premiere Pro aa u baahan tahay inaad fahantid. haddii aad jeysid mode kale haddaad jeysid tusaale kale editing mode haddaad jeysid keliya waxaa dhacaysa in qaybihii ay isbedelaan. tusaale kale hadda halkan waxaa imaaday project panelka iyo sidoo kale source monitorka ayaa isla imaaday. because of source monitorka waxaad ku garanaysaa waa sourceyan baashas oo source loo yaqaano ayaad ku aqoonsanaysaa iyo effectskan iyo waxaasaa la socday. so sidoo kale project monitorka waa ujeedaa waxaa ku qornaanaya marka project monitorka aad ku garanaysaa inuu yahay qaybtaas project ayaa ka hormaraysa then waxaa ku qornaanaya project magaciisa. tusaale hadda project magaca ku qoranta halkan ayuu ku qornaan doonaa sidaas isla mid ah. so qaybtan tools halkan ay imaadaysaa ujeedaan timelineka halkan u imaaday audio mixerka iyo sidoo kale program monitorka. Okay, so intaa markaa haysid waxaa u baahan tahay inaad fahamtid sida caadiga softwareada kaleba fileka waxa ku jiro waa sidii softwareada kale ku jiro. file markaa ku dhuftid waxaa ku jiro new oo new project aad furan kartaa, open project aad samayn kartaa, recent projects projectyada ugu dambeeya aad isticmaalaysay, close aad dhihi kartaa waa xiri kartaa. waxaa kaloo samayn kartaa close all projects aad dhihi kartaa haddii projectyo badan kuu furan yihiin. safe aad dhihi kartaa oo markii aad howshaada aad safe garaysanaysid safe as aad dhihi kartaa projectian inuu kuu safe garaysan yahay. sidoo kale isla projectigaas qayb kale oo kamid ah inaad sii safe garaysatay yacni safe as wax kale maahan projectia howl ka waday waa safe garaysatay then projectian intaan inuu ku ekaada rabtaa laakiin aad kasii wadid qaybtaas uu ku egaari oo kugu sii yaalo. so qaybtaas waa joojinaysaa then waxaa leedahay safe as qaybtaasna waa laga sii wadaya qaybtaasna way ku safe garaysnaanaysaa. dabcan inta badan waa la yaqaanaa safe houska safe all aa jiro iyo a lot of stuff kale. so qaybahan kalena waa sharxina. exitkan waxaa waaye waa inaad project aad ka bixi jirtid. editkan oo ku jiro oo lamid ah yacni editka wax kale maahan waa control c paste copy all of that marka waa halkan ay ku jiraan saa ujeedaan. waxay leeyihiin sidoo kale shortcutadii la yaqaanay oo caanka ahaa control c control f waxaasna marka waqti ku luminayno. sidoo kale qaybta waxaa jira keyboard shortcuts oo aad markaasi aad bedeli jirtid waa ujeedaa qayb walba shortcutada uu leeyahayna halkan ayaa ka arki karaysaa. okay, very cool. so qaybta kale waa sequence insha allah isla arkeena. waxaa loogu talagalay qaybta markaa video editka waay gudaha uu sii jalinaya markaas ayaa markaas fiican usii fahmeynaa. so qaybtan waa view qaybtan qaabka wax usoo muuqanayaan waay haddii markaa waxyaalahan oo dhan hadda ay saaran yihiin garay ay yihiin micnaheeda xitaa wax kuu furna oo aad markaa maamuli karaysid. okay, qaybtan marka waa qaybta windowga. qaybtan marka waxaa loo yaqaanaa qaybta ugu muhiimsan inay tahay because of
waxaan dhan oo kuu soo muuqda haddii kaa kharsamaan waxaad kasoo bixinaysaa qaybta windowga tusaale kale hadda tan oo kale waxaa la dhihi jiraa close ayaa la dhihi jiraa right click ayaa dhehaysaa kadib waxaa dhihi kartaa close panel okay qayb walba waxaa loo yaqaanaa panel utunow panel waxaa loo yaqaanaa qayb walba yacni wax walba saan kugu furanba panel aa loo yaqaanaa halka windowga waa ogtihiin wax walba wuxuu yaqaanaa window soo ma okay wax walba wuxuu yaqaanaa window tusaale haddii file explorer aad soo furo oo saana usoo furo wuxuu yaqaanaa window ayuu yaqaanaa hal window saana wuxuu yaqaanaa window halka Premiere Pro halkii qaybna asina uu yaqaano panel ayuu yaqaanaa okay then waxaa dhehaysaa markaa close panel aa dhihi kartaa tusaale kale uu kaa xirmay then markuu kaa xirmo waxaad aadaysaa window kadib waxaad aadaysaa kan hadda kaa xirma magaciisa raadinaysa tusaale hadda waxaa kaa xirma project mid loo yaqaano waxaa aadaysaa qaybta hore qaybta ugu hooseysa oo ku qorantaa projects maadaama projectyo badan ay ku furnaan karaan so project hadda kaa xirma waa Premiere Pro for beginners ayaa kaa xirmay then hadda waa ujeedaa waa lagu soo furay then haddii aad rabtid isla qaybtaas jeesti inaad jeysito waxaa samaynaysaa lifti kelitaa la qabanaysaa waa darajaraynaysaa qaybtaas jeesi ayaa jeenaysaa sidaas ayaa markaa mid walba uu horumaraya then qaybtaas ayuu imaanaya okay so wax walba kaa xirma marka qaybtaan imaanaya wax walba soo muuqdana qaybtan ayay kasoo muuqdaan wax walba tigtaan micnaheeda soo muuqda haddii tigta aad ka wada qaado micnaheeda xitaa wuu qarsamaya okay so qaybta marka windowga ay la fahanteen waxaa jira workspace qayb loo yaqaano oo ah workspace tan kala duwan oo hadda aanu soo sharxin qaybahan hadda workspace loo yaqaana qaybta hadda aad joogno waa qaybta learningka so haddii aan aado workspace kadib learning aad joogaa leedahay soo kale mid walba wuxuu leeyahay shortcut oo alt shift 1 alt shift 2 alt shift 3 ilaa alt shift 9 ayuu leeyahay saa ujeedaan okay so sidoo kale waxaa jiro layout reset to layout waxaa uu taala kale kan ayaa soo daraajareeyey hoostaana keenay oo ujeedaa qaybtaana keenay kan ayaa soo daraajareeyey okay something I think intuu kala dhiday so sidaan oo kale isugu dhex yaaciyey kan waxaa laga rabaa halkan kanna waxaa laga rabaa halkani so maadaama isku dhex yaaceen waxaa u baahnaa inaan sidii hore aan ku celiyo marka waxaan sameynayaa halkan saraad ana aadaya waxaa ku dhufanayaa window kadib workspace ku aadinaya then workspace markaa ku aadiyo waxaa sameynaya qaybtan hay ku qoran tahay reset to saved layout okay layoutaada qaab buu ahaa oo loo save gareeyey markii hore inaad markaa igu celisata ayaa doonaya ayaa leedahay then waxaa loo celin doonaa qaybta uu ahaa ayaa loo celin doonaa so hadda waxaan aadaynaa qaybta uu ahaa ayaa loo celiyay hadda waxaa loo celiyay qaybta koodi uu ahaa hadda sidaan ayuu ahaa dabcan markii aan qalqaldahay ama aan kala jeejeynaya saa ma ahayn laakiin aslan marka programka uu imaanayay learningka qaabkan ayuu ahaa ee aniga ayaa markaa hagaajiyey oo markaasi kala toosiyey okay so learningka hadda saanu ku imaadaa editingkan asina sidaanu ku imaada haddii hadda reset aan siinahno wixii baxay iyo wixii kale asaa soo gelinayo reset aad siinaysaa wixii baxay iyo wax dhan uu soo gelinaya waxyaalahan kale sii kansalay waa uu soo geliyey okay so sidee u sameynaa markaa qaab ani aan rabo sida hadda learningka oo kale ani wuxuu igu samaysnaa qaab ani aan rabo igu samaysnaa si fudud markaa waxaa sameynaysaa tusaale kale leenkaan isbedelaysaa waxaa leedahay close aa dhehaysaa sidoo kale ani hadda waxaan rabaa programka inuu kor imaado lift oo ku aadinaya qoraalka meesha qoran waxaa sameynaysaa muuska ku aadinaysaa lift kelika la qabanaysaa oo soo daraajareynaysaa qaybta markuu saan dhexda usoo qabto micnaheeda xataa dhexdan u galaya hadduu saa usoo qabto kor ayuu aadaya micnaheeda hadduu inta soo qabto waxaa waye gestan ayuu aadaya something like that soo dhexda ku aadinaysaa waa uu dhex galaya kan iyo kan marka micnaheeda xataa hal meel ayay wada aalayaan sidoo kale waxaa samayn kartaa marka gestan ayaa jeenaysaa oo soo daraajareynaysaa so sidoo kale waxaan rabaa qaybtan brush inaan iska xiro oo aan dho close timelineka halkan ayuu ii yaalaa sidoo kale toolskan halkan ayuu ii yaalaa kana sidoo kale halkan ayuu ii yaalaa okay so all of this marka sidaana usoo samaysan karaysaa sidoo kale waxaan rabaa inaad soo furto wax loo yaqaano effects oo mid kamid ah waxyaalaha ugu muhiimsan ah so kadib halkan soo dhiganaya effect controlka iyo sidoo kale effectska dabcan so effects hadda halkan uu aaday dabcan waa meesha default ama meesha aslan uu aali lahaa then halkan uu soo daraajareynaya oo kusii daynaya so halkan waxaa yaala hadda waa project effect controlka effectska sort panelka sidoo kale timelineka toolska iyo sidoo kale program monitorka iyo audio mixerka okay so hadda marka sidaan marka aan ku practice gareyn doonaa practice-keena so hadda waxaa samaysaa inaa qeybaha kale la socotaan qaybta marka waxaan ku qaadanay Premiere Pro interface and every day like train, sleep, eat, repeat, patient, hard work, sacrifice. Like without these things, doesn't matter how talented you are. If you're not ready to sacrifice, you have to sit home. This is just my advice for young guys who wanna become great champion.